بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waxaynu maraynaa xalaqadii saddexaad ee taxanihii aynu kaga warramaynay nabigeena calayhi salaatu wassalaam waxa uu inoo yahay iyo waxa uuna ka mudan yahay waxaan jeclaystay inta aynaan sii gudbin inaan in yar hal xalaqa ka dhigno sayidina bilaal ibn rabaax radiyallahu canhu asxaabta nabiga ka mid ahaa calayhi salaatu wassalaam dadkii ugu horreeyey oo soo islaamay magaalada makana ka mid ahaa inaan in yar ka xuso iyo nabiga jacaylkiisa calayhi salaatu wassalaam bilaal wuxuu ahaa nin addoon ah oo ay leeyahay nin gaala oo aad iyo aad u khayr daran oo umayat ibn khalaf la yidhaahdo oo reer maka ah markii uu islaamay ayuu yidhi islaamnimada iskaga baxo iskaga tag marka uu diidayna ciqaab iyo cadaab ayuu ku sameeyey aad iyo aad u badan inuu gaaro inuu magaalada maka oo aad ogtihiin jaziira alcarabiya oo dhul aad iyo aad u kulul ah gaar ahaan xilliga xagaaga ah inuu kulaylahaas magaaladaas dhagaxa ah oo qaraxa ah uu shafka u dhigo inta dharka ka qaado oo markaa dhagxaan dusha laga saaro in la gaaray in bir la dabeeyey lagu dhadhajiyo sida loo cadaadinayo loo dhibeeyey ninkaas uu gaaray iyada oo ciqaabta lagu wado oo la leeyahay gaalow uu oranayay axad ay aad macruufka u tahay bilaal radia allahu tacaala canhu taasuu u adkaystay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sabar ku siiyey sayidina abu bakr radia allahu tacaala canhu ayaa ninkaa ka iibsaday umayat bn khalaf ahaa dabadeedna xoreeyey oo ilaahay wejigiisa u xoreeyey waxayna ka mid ahayd xoraynta ninkaas uu xoreeyey waxyaabaha ilaahay uu ku ammaanay subxaanahu wa tacaala sayidina abu bakr ibn abi quxaafa radia allahu tacaala canhu asxaabtu markay abu bakr ammaanayeen waxay yidhaahdeen abu bakrin sayiduna wa actaqa sayidana abu bakr sayidka yaga weeye sayidka yagiina wuu xoreeyey waxay u jeedaan bilaal ibn rabax radia allahu tacaala canhu ninkaasi dadkii ugu horreeyey islaamnimada u hormaray buu ka mid ahaa ilaahay dartii loo ciqaabay oo loo dhibay buu ka mid ahaa oo u sabro u adkaystay dadkii ugu horreeyey oo soo haajiray oo ilaahay dartii u haajiray ayuu ka mid ahaa magaalada madiine markii la yimidna ragga ku xanuunsaday oo dhibta badan kala kulmay ayuu ka mid ahaa ilaa wacyiga uu waayo sida ay caaisha radiallahu canha ka warantay iyo sida uu isaga iyo abubakar iyo asxaabtu aad bay magaalada madiine magaalo xanuun badan bay ahayd ay ugu xanuunsadeen ilaa markii dambe uu nebigu magaalada u duceeyey inuu ilaahay xumadaas ka qaado oo uu ka raro marka radia allahu tacaala canhu wuxuu noqday ninkii nebiga u adimi jiray ninkii nebiga u khidmayn jiray calayhi salaatu wassalaam nin wuxuu ahaa adduunyadan u jooga inuu diinta ilaahay kor yeelo oo uu nebiga u hiiliyo calayhi salaatu wassalaam oo u khidmeeyo wax adduunye aan shaqo ku lahayn radia allahu tacaala canhu gacanyaduu nebiga u ahaa waxbuu la qabanayey wuu u khidmaynayey howlo badan baad ku arki doontaa axaadiista nebiga marka aad ku dhex jirtid ama siirada nebiga sidaasaa bilaal yeelay bilaal baa waxaa qabtay nebiga waxaa bilaal u diray wax badan baad arki doontaa bilaal radia allahu tacaala canhu marka xalaqadan waxaan jeclaystay qisadii aan xalaqadii hore ku khatimay oo ahayd jacaylka ay asxaabta nebigu u qabaan calayhi salaatu wassalaam markii uu xanuunsaday in uu kusii faraxsan yahay inuu nebiga berri u tegi doono iyo asxaabtii uu jeclaa oo ay ka horeeyaan qisadaa nin kale qadan nalqa laxiba muxamadan waxisbah isaga weeyaan radia allahu tacaala canhu hilowga iyo kalgacaylka iyo xiisaha nebiga la kulankiisa uu u qaba calayhi salaatu wassalaam bilaal nebigu markii uu geeriyooday calayhi salaatu wassalaam isaga oo aan weli nebiga la xabaalin ayuu aadaankii ku dhuftay radia allahu tacaala canhu markii uu soo gaaray aadaanku allahu akbar allah baa weyn oo cid walba ka weyn oo afar goor lagu celcelinayo weeyaan kadibna ashhadu an laa ilaaha ila allah oo laba goor lagu celinayo waxaan markhaati ka ahay oo qalbigayga iyo afkaygaba aan ka qiraya allah mooye cid kale oo cibaado xaq u leh oo in la caabudo mudan inaysan jirin allah mooyaane subxaanahu wa tacaala dabadeedna waxaa lagu xujinayaa ashhadu ana muxamadan rasuulullah waxaan markhaati ka ahay oo qalbigayga iyo afkayga ka qiraya muxamed inuu yahay
ergeygii ilaahay noo soo diray inuu fariintiisana soo gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam oo laba goor lagu celinayo sayidina abubakar bilaal radi allahu tacaala canhu markii uu soo gaaray waashhadu ana muxamadan rasuulullah markuu soo gaaray ayuu ooyey oo oohintiisa lahay waayey maadaama nabiga hadda uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam dadkii oo dhanna ay la ooyeen sayidina bilaal radi allahu tacaala canhu wuxuu diiday inuu mar dambe adimo maadaama nebigu uu adimi jiray uu dhintay arrintaasina ay xusuustii ku kicinayso wuu diiday cid dambe oo nebiga ka dambaysa inuu u adimo radi allahu tacaala canhu bilaad shaam inuu aado uu jihaadka ka qayb gala ayuu ka codsaday abubakarra anaa kuu baahana ila joog uu yiri wuu diiday wuxuu yihi haddaan ilaahay dartii ii xoraysayna aniga iyo waxa aan doonayo ii fasax haddii aad adigu dantaada ii xoraysatayna waa kula joogayaa ilaahay dartiisaan kuu xoreeyey buu yidhi sidaasuu ku fasaxay inuu bilaadu shaam aado oo uu halkaa ka qayb galo jihaadkii inuu arka marka nebiga guryihiisii iyo qabrigiisii iyo masjidkiisii xusuustaasa xanuujinaysay marka sidaasuu uga tegey markay muslimiintu furteen magaalada baytulmaqdis oo uu yimid sayidina cumar bn khadaab radi allahu canhu oo magaalada furayaasheeda uu la wareegayey ayaa asxaabtu waxay ka codsadeen inuu u adimo bilaal marka cumar iyo asxaabtiiba way baryeen inuu hal mar u adimo markaasuu adinkii ku dhuftay radia allahu tacaala canhu bilaal isla sidii ku dhacday markuu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam markii uu soo gaaray inuu yidhaahdo ashhadu ana muxamadan rasuulullah ayuu ooyey radia allahu tacaala canhu asxaabtii oo dhanna ay wada ooyeen ilaa ay yidhaahdeen lama arag maalin asxaabta iyo muslimiintu ay ka oohin badnaayeen xusuusinta codkii sayidina bilaal aadaankii markuu nebigu noolaa uu adimi jiray ay rasuulkii ku soo xusuusteen calayhi salaatu wasalaam iyo geeridiisii ayaa dhammaan asxaabtii iyo muslimiintii kale la joogayba maalintay ugu oohin badnayd ay noqdeen kalgacaylka iyo xiisaha iyo hilowga iyo shawqa ay u qabaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aragtidiisa iyo la kulankiisa iyo la joogiisa iyo maqlidiisa iyo la shaqayntiisa iyo wax ka barashadiisa iyo raacidiisa iyo ku dayashadiisa ay u qabeen ridwaanullahi calayhim saasay la wada ooyayeen xalaqadaana marka intaas ayaan waxaan jecelaystay ka baryaynaa subxaanahu watacaala kuwii xuquuqdaas iyo kuwa kale aan ka tegayba ka soo baxa inuu ina ka dhigo sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wa alihi wasaxbi ajmaciin